galab wanaagsan iyo kulanti wacan idilkiinba khiyaarta hawada naga dhageysanaysa halkani waa raadiyo xuriyo codkii shacbiga ogaadeenaya oo aad ka dhageysanaysaan mawjada gaaban ee 40 mitir baan iyo waliba barta internetka ee ogaadeen iyo radioxuriya.com saacada Afrikada bari hadda waa 5tii galabnimo oo buuro ah barnaamijka qodobada aanu idinku hayno warka caalamka kadibna waxaa kamid ah waraysi meelo badan taabanaya oo aanu idinka hayno xildhibaankii kamid ahaa baarlamaanka wadanka Mareykanka ee usbuucii hore ku dhawaaqay inay shacabka Soomaalidu ogaadeen iyo xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan shirkii ururada dhalinyarada ogaadeenaya oo guul ku soo gabagaboobay xarunta wadankaasi Sweden magaalada Stockholm taas waxa idin si dheer oo aad maqli doontaan wargeys kamida wargeysyada ugu afdheer wadankaasi Denmark oo warbixin laba bog ah ka soo qoray xaaladda wadanka ogaadeenaya dabcan suugaantii ayaan meesha ka maqnayn oo aad maqli doontaan balse marka hore aayadihii quraanka kariimka ah ayaan idaacadeena ku bilaabanaynaa ee dhageysi wanaagsan الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله inuu anface dhageystayaal intaana waxay noogu dhamaaday aayadihii quraanka kariimka ah halkaad kala socoteen waa raadiyo xuriyo codkii shacbiga ogaadeenaya waa galab talaada oo ay arbaco soo galayso oo bisha 6 ay tahay 3 sanadka 2008 idaacadana galabta waxa ay gala qayb qaadanaya saaxiibaday Maxamed Darbaweyne iyo halgan guuleed radio xuriyo waxa kale oo lagu dhageysan karaa qaabka telefoonka siba dadka naga dhageysanaya wadamadaasi Mareykanka iyo Canada iyo caalamka idilba idinkoo garaacaya telefoonka lambarkiisu yahay 64153 kadibna garaacaya furaha 512 telefoon lambarka la garaacaya marka la dhageysanay radio xuriyo waa 64153 furuhuna waa 512 xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadanka Mareykanka oo la yiraahdo Keith Ellison oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee wadankaasi Mareykanka ayaa usbuucii hore shaaca ka qaaday in shacabka Soomaalidu ogaadeenaya ay xaq u leeyihiin in ay aayahooda ka tashadaan wariyaha radio xuriyo oo soo warama wadankaasi Mareykanka Maxamed Darbaweyne oo la kulmay xildhibaankaas ayaa warbixintan iyo waraysigii oo uu noo soo turjumay halkaasi nooga soo diray maalintii Arbacada ahayd bishan May 28 bahda radio xuriyo waxa aan nasiib u yeelanay in aan waraysi kooban ka qaadno mudane laga soo doorto gobolka Minnesota oo la yiraahdo Keith Ellison. Keith Ellison waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee Congress-ka Mareykanka. Haddaba mar ay jaaliyadda ogaadeenaya ay la yeelato shir iyo mas'uuliyiin ka socda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa waxa waraysigii ku bilowday sida tan. mudane sideed u aragtaa shirkii aad maanta la yeelatay jaaliyadda ogaadeenaya iyo mas'uuliyiinta ka socda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya? mudanuhuna wuxuu ku jawaabay sida tan. Well, I feel that it was very informative, very enlightening. We have made plans to follow up. The Ogaden community is very important to me. We're going to have some small group meetings, and inshallah, that'll be followed up by some larger group meetings. But we talked about some potential pieces of legislation that we might want to develop. And so it was a very fruitful and productive meeting. And it's the type of meeting that I expect from my brothers and sisters from the Ogaden community, well organized, well informed, and very cordial.
aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan la kulmo walaalahayga jaaliyadda Ogaadeniya iyo mas'uuliyiintooda la socota. waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan marar badan kulamo yaryar iyo kulamo waaweyn labadaba si aan u barto cilmi badan uga faa'iideysto xaaladda Ogaadeniya iyo dhibaatadii badneed ay soo martay. xaaladda Ogaadeniya waxaan ognahay in ay dhibaato badan ka jirto caalamkuna ay aad ula socdaan, balse anigu waxaan diyaar u ahay inaan faragelin badan ku sameeyo arrimaha xaaladda Ogaadeniya. mudanaha su'aashii labaad aan weydiiyey ayaa waxa ay ahayd mudane siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Ethiopia iyo Ogaadeniya sidaad u aragtaa? The United States must insist on civil and human rights of all people. It must also insist upon the right of self-determination. The people of Ogaden community have a right to determine their own destiny. And I think that the United States should be a force for peace, for reconciliation, for human rights, and should be supportive of peoples that are trying to determine their own destiny. Ogaadeniya waxa ay xaq u leeyihiin ayaka tashigooda sida shucuubta caalamka oo dhan ay xaq ayaka tashigooda ay ugu leeyihiin. sidaa daraadeed waxaan u arkaa ayaka tashiga Ogaadeniya inuu yahay mid xaq ah loona baahan yahay in markasta oo shacabka Ogaadeniya uu diyaar u yahay inuu ayaysa ka tashado in loo sahlo. mudanaha su'aashii kale aan weydiiyey ayaa waxa ay ahayd adigu shakhsi ahaan mudane ma taageersan tahay wada hadal dhexmara jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo Ethiopia? Mareykanku si door intee leeg ayaa uu ka ciyaari karaa wada hadal noocan ah oo dhexmara jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo Ethiopia? For fair negotiations, fair open dialogue. I think that if you can face a problem, you can fix the problem. But there are many barriers, many hurdles, but I think that the United States should support a fair process to peacefully resolve conflict. waxaan aaminsanahay inuu Mareykanku si cadaalad ah u dhaxgalo wada hadal dhexmara ururka ONLF iyo dawladda Ethiopia si loo helo deganaansho iyo xal waara oo ka dhaca Ogaadeniya. waxa kale oo aan aaminsanahay in ay dawladda Mareykanku soo dhaweyso qorshe wada hadal si cadaalad ah u dhaxgasho si nabad waarta loo gaaro. su'aashii ugu dambeysay aan mudanaha weydiiyey ayaa waxa ay ahayd mudane maxaad u soo jeedin lahayd jaaliyadda Ogaadeniya ee ku dhaqan wadankan Mareykanka gaar ahaan iyo guud ahaanba shacabka Ogaadeniya meel kasta uu joogo? Well, I would want to say that we've got to be engaged, we've got to be involved. Many people who are of Ogaden community have moved to the United States and to Minnesota and quite frankly plan on making Minnesota their home forever. Others plan on moving back home. But all, whether they're going to stay here or go home, care about the Ogaden region, care about the people of the Ogaden region. And I think that if you want to change a situation in America, you have to get politically involved, you have to mobilize the vote, you have to talk to your elected representatives, and you have to learn how to advocate for your own cause. There's a common phrase in our community, which is that a closed mouth does not get fed. So you got to open your mouth and let your voice be heard and advocate for the things you care about in an organized, coherent way. waxaan oran lahaa waa in ay jaaliyadda reer Ogaadeniya meel kasta joogaan siyaasadda dhexgalaan la hadlaan mas'uuliyiinta ay soo doortaan fahansiiyaana qadiyadooda iyo dhibaatada haysata shacabkooda. waxa kaloon aaminsanahay haddii aan la dhexgelin siyaasadda oo aan aad loo dhexgelin inaynan jireenin cid ogaanaysa xaaladda dadkiina haysata ama shacabkii aad ka timaadeen. shacabka Ogaadeniya waxa ay soo degeen gobolka Minnesota ayaga oo qaar ka soo carray dhibaatada haysata darteed, qaar waxa ay jecel inay dib u noqdaan, qaarna waxa ay jecel inay joogaan halkan oo ay guri ka samaystaan. si kastaba ha ahaatee waxa ay mar kasta aan dareensanahay xanuunka ay dareemayaan. haddaba waxaan jeclaan lahaa inay Ogaden community mar kasta siyaasadda soo dhex gasho oo ay codkooda maqashiyaan mas'uuliyiinta si wax looga qabto xaaladda haysata. mudanuhu waxa uu ku maahmaahay oo hadalkiisu ku soo gabagabeeyay maahmaah u dhiganta markii dhinaca Soomaaliga laga fiiriyo nimaan hadlanin hooyadii aana ma siiso, oo uu uga jeeday haddii aydan hadlanin cidna idinka warhayn mayso, cidna ma ogaanayso dhibka haysta shacabkiina. sidaa daraadeed waxa uu yiri hadlada si aan u ogaano dhibka idin haysta kadibna aan wax uga qabano. kaasina wuxuu ahaa wariyaha raadiyo Xuriyo ee wadankaasi Mareykanka Maxamed Darbaweyne iyo warbixintii iyo waraysigii uu noo soo turjumay ee uu la yeeshay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadankaasi Mareykanka oo la yiraahdo Keith Ellison
oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee waddankaasi Mareykanka. waraysiga oo dhammaystiran oo ku baxaya luqadda Ingiriiskana waxa aad ka heli kartaan shabakadda wararka ee www.ogaden.com. dhankaya waddanka Sweden, shirkii ururada dhalinyarada Ogaadeniya ee qaaraddaasi Yurub oo maalintii Jumcaheeda la soo dhaafay si rasmi ah uga furmay xarunta waddanka Sweden magaalada Stockholm ayaa guul ku soo gabagaboobay. shirkan oo ay isugu yimaadeen ururada dhalinyarada Ogaadeniya ee wadamada Yurub ka jira ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madax ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo si rasmi ah loogu casuumay shirkaasi. waxaana shirkaas goobjoog ka ahaa wariyaha raadiyo xiriyo uga soo warrama waddankaasi Ingiriiska Halgan Guuleed oo warbixintan halkaas nooga soo diray. shirweynihii labaad ee ururka dhalinyarada Ogaadeniya ee Yurub oo maalintii Jimcaheeda ee taariikhdu ku beegnayd 30 bisha 2008 ka furmay magaalada madaxda waddanka Sweden ee Stockholm ayaa guul ku soo gabagaboobay. shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dalalka Yurub intooda badan ayaa waxaa dalalkii ka soo qayb galay kamid ahaa UK, Denmark, Finland, Sweden, Norway, Austria, Holland iyo qaar kale fara badan. shirkan ayaa waxaa si buuxda uga soo qayb galay dhammaan urur hoosaadyada ka jira dalalka Yurub iyo jaaliyadaha intooda badan iyo madaxda sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya sida hogaanka arrimaha dibadda ee Jawxo Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha jabhadda Mudane Maxamed Yuusuf iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha jaaliyadaha ee Yurub Cabdiqaadir Cabdullaahi Gamaadid. sidoo kale ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano fara badan iyo indheer garad u dhashay waddanka Ogaadeniya. shirka ayaa waxaa maalinnimadii Jimcaha ahayd lagaga hadlay arrimo ku saabsan isbarasho iyo diyaarinta ajendaha qaybta labaad ee shirka. maalinnimadii Sabtida ahayd ayaa waxaa 10kii subaxnimo hoolkii weynaa ee shirka soo buux dhaafiyay dad aad u fara badan oo aad ugu heelana in ay dhageystaan khudbadaha qaaliga ah ee madaxda jabhadda iyo fikradaha dhalinta. halkaas ayaa waxaa ugu horeyn shirka lagu furay heestii calanka oo ay qaadayeen fanaaniinta qaaliga ah ee reer Ogaadeniya ee kala ah Jango iyo Maxamed Yare. kadib ayaa waxaa shirka lagu soo dhaweeyay urur hoosaadyada dhalinta Yurub oo mid uga hadlay shirka si ay u sharaxaan waxqabadkii ururada hoosaadyada ka jira dalalka Yurub. waxaa wejigii labaad lagu soo dhaweeyay madaxda Jawxo sida hogaanka arrimaha dibadda Jawxo Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey oo si aad ugu nuuxnuuxsaday waxqabadka ururka dhalinyarada iyo kaalinta ay halganka kaga jiraan ururka dhalinyarada, isaga oo tilmaamay waxqabadadii ay soo qabteen ururadii hore u soo jiray ee Ogaadeniya, isaga oo sheegay in haddii ururada dhalinyaradu ay si toos ah u midoobaan halgankana garab istaagaan ay horseedi karaan xorriyadda Ogaadeniya oo soo degdegta. dhanka kale ayaa waxaa dadkii ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha jabhadda Maxamed Yuusuf iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha jaaliyadaha Cabdiqaadir Cabdullaahi Gamaadid oo labadooduba ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in urur dhalinyaro oo Ogaadeniya yeelato ay ka hirgasho dibadda gaar ahaan Yurub. dhanka kale ayaa waxaa dadkii ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha jaaliyadda waddanka Ingiriiska Daahir Xasan Cabdullaahi Tamuuje, gudoomiyaha jaaliyadda Sweden Cabdinaasir Garweyne, xogayaha jaaliyadda Finland Engineer Axmed Cali iyo xubin matalayay jaaliyadda Switzerland Cabdullaahi Maxamed. shirka ayaa waxaa lagaga dhawaaqay dhamaystirkii ururka Ogaden Youth League in Europe oo guddigiisii fulinta lagaga dhawaaqay halkaas oo uu gudoomiyaha ururka Yurub Mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim Madasha shirka kaga dhawaaqay in si buuxda loo garab istaago ururkan iyo guddigiisa fulintaba. kadib ayaa madaxda Jawxo iyo shacab weynihii ballan qaadeen in ay heel iyo hooba la garab istaagan yihiin ururka Ogaden Youth League, iyaga oo maamulku ballan qaaday inay xoogooda gelin doonaan waxqabadka ummadda. dadka ka hadlay oo aad u fara badnaa ayaa waxaa kamid ahaa hooyooyinka Ogaadeniya ee waddanka Ingiriiska oo ay u hadashay halgamad Hiba Cali oo si fiican uga warbixisay kaalinta hooyooyinku kaga jiraan halganka xaqa ah ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya hogaaminayso. ugu dambeyntii ayaa waxaa shirka soo xiray gudoomiyaha unuga Jawxo ee Sweden Mudane Mustafa Xasan Ilbugle, waxaana lagu soo gabagabeeyay heeso iyo dhaantooyin ay horkacayeen dhalinta daada yar ee Ogaadeniya u dhalatay iyo fanaaniinta caanka ah ee reer Ogaadeniya. Halgan Guuleed, raadiyo xiriyo, Stockholm, Sweden. kaasina wuxuu ahaa dhagaystayaal wariyaha raadiyo xiriyo ee waddankaasi Ingiriiska Halgan Guuleed oo isagu goobjoog ka ahaa shirkii ururada dhalinyarada Ogaadeniya ee qaaradda Yurub ee lagu soo gabagabeeyay xarunta waddanka Sweden magaalada Stockholm. shirkaas ayaa waxaa khudbado dhaadheer ka soo jeediyay oo dhaxalgal ah gudoomiyaha hogaanka arrimaha dibadda ee Jawxo Mudane Maadey, ku-xigeenka gudoomiyaha hogaanka arrimaha jabhadda Maxamed Yuusuf iyo waliba ku-xigeenka gudoomiyaha hogaanka arrimaha jaaliyadaha Mudane Gamaadid. khudbadahaasna waxaad ku maqli doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo idaacadaha iyaga dambe ee soo socda.
dhanka iyo suugaanta ayaan yara jaleecaynaa ee kooxdii u qaabishanayd fanka iyo suugaanta shirkaasi ayaa waxa ay soo bandhigeen suugaan baraarujinaysa dhalinyarada lana hadlaysa dhalinyaradu in ay kaalin ka qaataan halganka loogu jiro xoreynta Ogaadeniya waana tan suugaantii ay soo bandhigeen kooxdii u qaabishanayd fanka waa tahay dhagaystayaal suugaantii ay dhalintu ku soo bandhigeen shirka aad ayay u tiro badnayd inahaas ayaanse ka soo qaadanaynaa haddana dhanka iyo waddanka Denmark maalin labaad ayaa waxaa lagu soo qoray joornaal ka mid ah joornaalada ugu caansan waddankaasi Denmark oo la yiraahdo Information warbixin dheer oo 2 bog ah oo uu soo qoray wariye u shaqeeya joornaalkaasi la yiraahdo Information oo booqasho gaaban ku tagay caasimada gumaysiga Ethiopia magaalada Addis Ababa kadibna la kulmay qaar ka mid ah shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee ka soo cararay gumaadka ay ciidamada gumaysiga Ethiopia ka wadaan waddanka Ogaadeniya warbixintan oo meelo badan taabanaysay ayaa wariyuhu waxa uu ku cadeeyay in ay marna aysan suuragal ahayn in Ogaadeniya lagula noolaado ciidamada Ethiopia dadkii uu la kulmay wariyahaasi oo ka warbixiyay dhibaatooyinkii soo gaaray ayaa waxa ay sheegeen in loo geystay jirdil xarig iyo waliba hanti laga dhacay wariyaha oo warbixintiisa aad ugu dheeraaday ayaa waxa warbixinta uu ka soo daayay sidoo oo kale idaacadda laga dhageysto waddankaasi Denmark ee la yiraahdo Radio Denmark oo ah idaacadda ugu afdheer waddankaasi baarlamaanka waddanka Denmark ayaa qadiyada Ogaadeniya iyo dhibaatooyinka uu gumaysiga Ethiopia ka wada waddanka Ogaadeniya kaga hadlay baarlamaanka waddankaasi bishii Agoosto ee la soo dhaafay ee sanadkii 2007 iyadoo uu soo jeediyay arrintaasi xubin ka tirsan ururka mucaaradka ah ee la yiraahdo Social Democratic waxa ayna isla qaada dhigeen in ay muhiim tahay in qadiyada Ogaadeniya iyo arrimaha ka taagan waddankaasi sida ugu degdegsiya badan wax looga qabto inahaas ayaana dhagaystayaal ku soo gabagabeynaa idaacaddayadii galabta oo talaado ah waxaana idaacadda igala qayb galay saaxiibaday Maxamed Darbaweyne iyo saaxiibkay Halgan Guuleed oo nooga soo kala waramayay waddanka Sweden iyo waddankaasi Mareykanka tan iyo kulanti dambe waa Cabdinuur Sheekh Maxamed iyo saaxiibadii Maxamed Darbaweyne iyo Halgan Guuleed oo idinku dhaafaya sida iyo nabad gelyo